والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتوا عنا وناسند لهانتم بداوضيال ملك الصدافة عالم كاد كجوجتان halkani waa muqbahiya caanka ee SRS TV kuna soo dhawaada war wixii waqti xaadirkan qodobada wararkan ku macna doontaan ugu door karoona khiyaari waxa kamid ah ciidanka New Police oo xadka gobolka Doolaleeya Soomaaliya shaqooyin wanaagsan ka qabtay Ethiopia oo magacooda danjiro cusub oo fariisan doona Djibouti isla markaana danjiro wuxuu haatan gaaray dalka Djibouti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsiin u diray gudoomiyaha golaha shacabka oo adeerkii ku geeriyooday magaalada Muqdisho xooga dalka Soomaaliyeed oo Soomareeb ka baxay isla markaana saldhig cusub ka furtay deegaanada aagaasi khiyaar kuwaas waa qodobada wararkan ugu door karoon kuwan iyo kuwa kale faahfaahintooda u diyaar garooba ciidanka xooga gaarka ee dawladda Soomaalida brigade-ka saddexaad ee fadhigoodu yahay gobolka Doolyo Qorraxay gaar ahaan kuwa ka howlgala xuduudaha uu gobolkaasi Doolaleeyahay dalka Soomaaliya ayaa guulo la taaban kara ka keenay dhanka la shaqaynta bulshada labada dhinac oo nolol iyo ganacsi ahaanba ay isku tiirsan yihiin waxayna ciidanku halkaasi guulo la taaban kara ka soo hooyeen dhanka ammaanka ganacsiga iyo nolosha shacabka labada dal sidoo kale waxa ciidanku xoog saareen ka qayb qaadashada heshiisiinta beelaha walaalaha ee shaqooyin ku dhaxmartay bariga gobolka Doolo oo natiijada la taaban ka soo hooyeen isla markaana bulshada aagaasi degan ciidanka dawladda Soomaalida ugu mahadceliyay shaqooyinka wanaagsan ee bulshadu hayaan qaar kamid ah saraakiisha ugu sarreeyay ciidanka xog gaarka ee gobolka Doolo oo ku sugnaa tuulada Saaxdheer ee xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sheegay in ay wada shaqayn wanaagsan ka dhaxayso qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kale bulshada degan tuulada Saaxdheer ee degmada Galxamur ayaa ciidanka ku amaanay shaqada wanaagsan iyo daacadnimada bulshada u hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa danjiraha cusub ee Itoobiya dhawaan u magacaabay inuu noqdo danjiraha guud ee Itoobiya oo fadhiya dalka Djibouti ayaa dhawaan la guddoonsiiyay warqadda magacaabista ahayd sidoo kale danjire Birhano ayaa xilligu warqadda magacaabista wareejinayay isla markaana guddoonsiinayay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele wuxuu soo jeediyay inuu xoojin doono xiriirka kala dhaxeeya dalka Djibouti iyo Itoobiya ambassador Birhano ayaa tilmaamay inuu la shaqayn doono dawladda iyo shacabka dalka Djibouti si markaas looga meedhaliyo استراتيجية حرير الدبلوماسية إثيوبيا جيبوتي مدحونا إسماعيل عمر جيلي أيا إسنا دنكي سعدي إن دولة جيبوتي مال مرنا يسو حولها إسكاش كجود يلا بدأ الضل إسماعيل عمر جيلي ومدحونا الدل كجيبوتي أيا شغل إن حريركا إن عيا بدناها هي لبدا الدل يلا بدأ الشعب إثيوبيا جيبوتي هي مثل تشرين ومناكسن إسلام أركانا من دقة الجيش أفريقيا تصارع وعنواه مدحونا جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي أيا عديون وكرة شوية إن دجرا عصب يوسف عن الله شقين دونانا حكومة جمهورية جيبوتي isla markaana uu xiriirka labada dal uu kor u qaadi doono saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa ugu geeriyootay cudurka safmarka ee COVID-19 oo muddooyinka u dambeysay si weyn ugu faafay dunida sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Mareykanka taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa arrinta ku shaaciyay warbixin uu dhawaan soo saaray oo uga hadlayay howlgallada la dagaalanka oo soo dhigida awood argixisada Afrika warbixintan uu u gudbiyay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyaal ka tirsan kooxahaasi ay u geeriyoodeen cudurkaasi inkastoo aan si cad loo sheegin saraakiisha cudurkaasi uu ka dilay xarakada al-shabaab iyo magacyadooda taliska howlgallada gaarka Afrika oo warbixintan gudbiyay ayaa sidoo kale ku xusay in cudurku uu soo riday saraakiil kale oo ka tirsan kooxahaasi wuxuuna taasi ku macneeyay inay meesha ka saarayso sheegashada in cudurkaasi uu gaalada gaar u yahay cudurkan ma soo ridin saraakiishooda al-shabaabka oo kaliya balse qaarkood ayaa u geeriyooday sidaas waxaa yiri taliska howlgallada gaarka ee qaaradda Afrika ee Mareykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dambal tacsiya u diray gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya August 13 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga tacsiyay gudoomiyaha golaha shacabka wadane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan geerida ku timid Allah u naxariistay adeerkii Sheekh Usmaan Sheekh Cabdiraxmaan oo ku geeriyooday caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa la weydiiyay marxuumka inuu hoygiisa ka yeelo jannatul firdaws samri iimaan ka siiyo dhammaan ehelada iyo qoyskii qaraabadu ka baxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yiri waxaan la qaybsanayaa mulugta geerida adeer Sheekh Usmaan Sheekh Cabdiraxmaan oo Muqdisho ku geeriyooday waxaan dhammaan ehelada iyo qoyska ka baxay uga bariyaa samir iyo iimaan gaar ahaan waxaan tacsi u dirayaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh wuxuuna madaxweynuhu yiri Allah u dambi dhaafo jannatul firdawsna hoygiisa ka yeelo
ciidamo wati gaadiidka ugu badnaa ee dagaalka oo ka baxay magaalada Dhuusamareeb xarunta Galmudug isla markaana ku wajahan deegaanada bari ee gobolka Galguduud ayaa saldhig ka sameysay deegaanka Bullacle oo hoostaga degmada Ceelbuur oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. ciidamadani waxaa sii sagootay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo wasiirka amniga Axmed Fiqi oo dardaaran iyo dhiirigelin siiyay. waa xilli ay maalin ka dhiman tahay xilliga lagu balansanay in lagu soo xaadiro ama ay isku yimaadaan shirki weyn ee Dhuusamareeb. akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee qodobkaasi ee ugu dambeeyay warkii SRS TV intaan ku kulmi doono warkiisa xiga waa aniga iyo bahda SRS TV kaga tagay sida iyo nabadgelyo.